maxaa dhici doona haddii Mareykanku uu weerar ku qaado dawladda Islaamiga ah ee Iran weerar Mareykanku ku qaado dawladda Islaamiga ah ee Iran ma noqon doona howlgal ciidan oo kooban mana noqonayo ciqaab xadidan ma aha cabsi gelin la sii xisaabiyay waxa uu noqon doonaa jabinta istiraatiijiyadda Mareykanku ku soo caanamaalay ugu dambeynna dagaalku wuxuu sababi doonaa in awoodda Mareykanku urursaday ay isu bedesho culays isdaba joog ah oo asaga qabsada su'aashu ma aha Mareykanku ma weerari karaa Iran waa awoodaa inuu Mareykanku weeraro Iran laakiin su'aasha dhabtiihi waa muxuu luminayaa ilbiriqsiga uu halgantaal ku rido dhinaca dawladda Islaamiga ah ee Iran muddo 10 sano ah Washington Israa'iil uma arkin saaxiib kaliya balse waxay u arkaysay saldhig howlgaleed hore waxa Ingiriiska lagu yiraahdo Forward Operating Base wuxuu u yaqaanay markab diyaaradeedan quusin xarin surdoon iyo tiknoolajiyad tiirka awoodda Mareykanka ee bariga dhexe waa Israa'iil haddii uu Iran la gala dagaalna waxa dhici doona xeerkaas oo sidii geed qalalay u kala siiban doona jawaabta Iran ma ahaan doonto mid fudud ama riwaayad waxay noqon doontaa jawaab shaqaynaysa oo functional Tehran waxay isticmaali doontaa waxay ugu yeerto midnimada goobaha dagaalka ama dhibaatada Shiicada cadaadis ayay Mareykanka ka saari doontaa Lubnaan Gaza Suuriya Iraq iyo Badda Cas Iran waxay talaabadan u adeegsan doontaa in Israa'iil laga dhigo saldhig aan shaqayn karin haddii garoomada Israa'iil la carqaladeeyo dekadaheedu xidhmaan nolosha dhaqaale ee Israa'iiliyiinta culays joogta ay la kulanto Israa'iil ma sii ahaan doonto tiir istiraatiiji ah oo Mareykanku leeyahay ama sida uu u arkayay markabka aan qusin taasna waxa ka dhalan doona in awoodiisa oo dhan uu isugu geeyo sidii uu Israa'iil u badbaadin lahaa waqti uu Mareykanku baahida ugu badan u qabo dhaqaale Washington waxay halaagaysaa hantideeda istiraatiiji ah ee ugu qaalisan waa Israa'iil ciidanka Mareykanka waxa loo dhisay xawaare saxnaan iyo awood sidaas ayaa maskax ahaan ay u hubaysan yihiin ciidanka Iranse waxa loo dhisay samir sugnaan iyo dagaal waqti dheer ah Iran kulama dagaalami doonto Mareykanka halka uu ku xoogan yahay ee xooga awoodda xawaaraha iyo waxyaabaha la midka waxay kula dagaalami doontaa waqtiga oo dheerayso kala firdhinta awoodda iyo qaybsanaanteeda taasi oo ugu dambeyn keeni doonta koror joogta oo khasaareed oo Mareykanka gaadha ballanqaad aan dhamaad lahayn iyo ugu dambeyn samidiyada soo food saarta ciidamada birta caalashada ee Mareykanka tani Mareykanka ku noqon mayso guuldarro goob dagaal waa guuldarro introbri ah taas oo ula jeedo awood tartiiba u dumaysa waana sida ay boqortooyinku u dhigbaxaan intaasi waa dhinaca militariga dhanka kale haddaan ka eegnana dagaalku wuxuu keeni doonaa dhigbax dhaqaale dagaal la galay Iran laguma maalgelin doono sidii kii Ciraaq iyo Afghanistan ka dhacay albarye iyo xuswadaaga waxa lagu maalgelin doonaa hantida Mareykanka oo galiya taasoo asna ku khasbi doonta daabacaad lacageed oo dollarkiisa qiimo rid ah dayn cusub oo uu qaato intaas kadibna natiijada dhaqaalaha Mareykanka waa la saadaalin karaa waxa uu wajihi doonaa sicir barar qiimaha shidaalka oo kaca maalgashiga gudaha oo hoos u dhaca kaabayaasha hal abuurka iyo wadashirka bulshada Mareykanka oo daciifa dhanka kale haddii aynu ka eegna saamiga Shiinaha ee dagaalkan Shiinuhu waa guuleystaha dhabta ah ee dagaalka ka faa'iido doona sababtoo ah inta Washington maskax ahaan iyo military ahaanba ugu mashquulsan tahay bariga dhexe Pacific waa baylah saameynta Shiinaha ee badda Pacific-guna waa siil bulaari doonta isbahaysiyada Shiinuhu ka wada Afrika iyo dunida inteeda kalena waxay gaari doonaan fikta sare gantaal kasta oo bariga dhexe lagu rido waa mid fursad u abuuraya bariga Aasiya markab kasta oo ku xayirma marin biyoodka Hormuz mid ka maqnaanaya miisaanka ganacsiga ee Pacific Shiinuhu wuxuu rursanayaa faa'iido isagoo aan xabad ridaynin dunidu dagaalkan uma arki doonto laba dal oo dagaalamay waxay u arki doontaa tallaabo bahalnimo ah iyo cadowtooyo Mareykanku u muujiyay dal dhisan cadowgu ma aha dawladda Iran ee waa cid walba oo kula midooda mowqifka iska dhicinta reer galbeedka sidaa darteed safaarado shirkado shabakada ganacsi iyo wax kasta oo Mareykanka ku lug yeesho waxay beelaha u yihiin weerar la beegsado waxayna wajihi doonaan cadaadis joogto ah iyo kala tagsanaan ay kala kulmaan kooxaha dawladda ahayn oo ay Iran taageerto